خالد بن وليد. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. خالد بن وليد ابن مقيرة سيف الله المسلول waxa uu ka dhashay qabiilkii reer Bani Maqzuum oo ka mid ahaa qabiiladii ugu waaweynaa jasiiradda Carabta ee magaalada Makka. reer Bani Maqzuum oo ah qabiilka uu ka dhashay Khaalid ayaa mansab iyo sharaf u dhexlaa Quraysh xilligii jaahiliyadda. qabiilkaas reer Bani Maqzuum waxaa ka dhashay rag badan oo ka mid ah dadkii ku horeeyay islaamnimada sida Abu Salama bin Abdul Asad iyo Arqam ibn al-Arqam oo gurigiisa uu ahaa masaajidkii ugu horeeyay ee islaamka iyo madrasadii ugu horeysay ee lagu bartay diinta islaamka markii nabiga la soo saaray. qoyska Khaalid bin Waliid ayaa ayagana ahaa dad sharaf sumcad iyo maamuus ku dhexlaa qabiilkaas weyn. Khaalid adeerkiis wuxuu ahaa Abu Umayma ibn Muqirah oo ah nin ku caan baxay xikmadda iyo gargoynta, waana ninkii Quraysh oo ku dhow inay isdisho kala dhex galay kadib markii la isku qabsaday ciddii Xajarul Aswadka booskiisa dhig lahayd markii Kacbada dib loo dhisay. wuxuuna Abu Umayma yidhi garta ha loo daayo shakhsiga ugu horeeya ee Kacbada soo gala, gartaas oo markii dambe gooyay nabigeena ka hor inta aanan loo soo dhiibin risaalada islaamka. Khaalid aabiis waxa uu ahaa Cabdulshams Waliid ibn Muqirah oo isagana ahaa nin magac iyo sharaf ku dhex lahaa qabiilkii reer Bani Maqzuum iyo Quraysh oo idil. waxa uuna ahaa nin xikmad badan kana mid ahaa garyaqaanada Quraysh, inkastoo uu ka mid ahaa ragga sida aadka u dhibay nabigeena. Khaalid oo ku soo barbaaray jawiga iyo bii'ada sharafta leh ayaa waxa uu bartay yaraantiisa fardafuulka sida caadada u ahayd carruurta qoyska sharafta leh ee Quraysh. balse Khaalid ayaa la soo baxay firfircooni, geesinimo iyo xirfad ka dheer midda asaagiisa ah. Khaalid bin Waliid ayaa xilli hore oo noloshiisa ku soo baxay nin laga bartay fagaarayaasha dagaalka, wuxuuna ku caan baxay fardafuulka oo xilliga ahaa gaadiidka lagu dagaaltago midka ugu sareeya, wuxuuna si muran la'aan ah ku noqday farasyahanadii casriga jiray kan ugu horeeya. Khaalid ayaa ka hor islaamadiisa ka mid ahaa ragga sida aadka u necbaa diinta islaamka iyo nabigeena suuban naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee shakhsi ahaanna ku dadaali jiray in la ciribtiro diinta islaamka. wuxuuna Khaalid bin Waliid ka qayb qaatay dhammaan dagaaladii dhex maray muslimiinta iyo mushrikiintii Quraysh marka laga reebo dagaalka Badr oo uu xilliga ku maqnaa cariga Shaam. Khaalid bin Waliid waxa uu doorka u weyn ku lahaa jabkii ciidamada islaamka soo gaaray dagaalkii Uhud, isagoo ka mid ahaa mushrikiintii Quraysh kadib markii uu si la yaqaan ugu faa'iidaystay fursaddii ahayd khilaafkii ay rumaadii la dhigay boorta ay khilaafeen amarkii nabiga markii ay arkeen gaaladii oo jabtay iyagoo u soo degay inay wax ka helaan qaniimadii laga helay gaalada. Khaalid bin Waliid ayaa isagoo ka faa'iidaysanaya fursaddaas ayaa wuxuu gadaal kaga yimid ciidamadii islaamka oo ku dhawaa guusha dagaalka, isagoo cagta mariyay ciidankii yaraa ee ku haray buurta, wuxuuna guushii islaamka ee dagaalka u bedelay guuldaro xoog leh oo gaartay ciidanka islaamka, halkaas oo lagu dilay 70 saxaabi ah oo ku jira imaamkii shuhadada adeerkii nabiga Xamza bin Cabdilmuttalib. dhaawacna waxaa soo gaaray rasuulkeena suuban ee Muxamed bin Cabdillaah naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee. Khaalid ayaa sidoo kale ka mid ah raggii ugu fircoonaa ee Madiina soo weeraray dagaalkii Axzaab ama Qandaq, isagoo dhowr jeer isku dayay inuu ka tallaabo godkii dhufayska ay saxaabada ugu talagaleen inay ku difaacaan magaalada Madiina. inkastoo uu dagaal ku soo idlaaday niyad jab xoog leh oo gaaray ciidankii gaalada kadib markii ay ku guuldareystay inay gudaha u galaan magaalada Madiina. Xudaybiya Khaalid bin Waliid ayaa hoggaan ku ahayay 200 oo faradyahan ah oo Quraysh ay ugu talagashay inay ka hortagaan dagaal nala galaan nabiga iyo ciidankiisa oo socday inay soo cimraystaan, inkastoo markii dambe arrinta ay ku soo afjarantay heshiis dhex maray nabiga iyo Quraysh. Khaalid bin Waliid ayaa nacaybka uu islaamka u qabo aawgii ka hor islaamadiisa magaalada Makka isaga baxay markii ay saxaabada iyo rasuulka ay Makka soo galayeen sanadkii xiga ee Xudaybiyah markii arrinta lagu heshiiyey sanad ka hor, isagoo diidanaa inuu arko Muxamed iyo asxaabtiisa oo gudaha u soo galaya magaalada Makka. ninkii islaamka u qabay nacaybka intaa la eg ayaa mar qura isku bedelay geesi ka mid ah geesiyaasha islaamka, seef ka mid ah seefihii sharafta iyo guulaha u soo hooyay diinta islaamka ilaa markii dambe loogu magac daray seeftii Alle. Khaalid bin Waliid ayaa ku hanuunay diinta islaamka ee sharafta leh bishii Safar sanadkii 8aad ee Hijriyada, 6 bilood ka hor Fatxu Makka kuna beegneed ka hor 2 bilood dagaalkii Mu'tah, waxaana islaamadiisa isaga iyo nabiga u kala dibqaaday walaalkii Waliid bin Waliid. nacaybkii islaamka ee Khaalid ayaa isku bedelay jacayl, muslimiintii ayaa ku farxay islaamida Khaalid. wixii markaas ka dambeeyay Khaalid bin Waliid wuxuu ka mid ahaa geesiyaashii islaamka. 2 bilood kadib qaadashadiisa diinta islaamka, nabiga ayaa ciidamo u diray dagaalkii Mu'tah, Khaalidna wuxuu ka mid noqday ciidamadaasi. markii uu dagaalka bilowday ayaa la dilay 3dii hoggaan ee isaga dambeysay ciidamada islaamka ee kala ahaa Zayd bin Xaarisa, Jacfar bin Abi Taalib iyo Cabdullaahi bin Rawaxa, waxaana hoggaanka ciidanka la wareegay Khaalid bin Waliid oo ay saxaabada u doorteen. nabiga oo dagaalka si toos ah ugu tabinayay saxaabadii Madiina ayaa afkiisa ka soo baxday waxaa raayada qaaday seef ka mid ah seefihii Ilaahay, halkaas oo ay ugu baxday Sayfullaahi al-Masluul. Khaalid ayaa durbadiiba bedelay qadada ay ku dagaalgalayeen ciidanka, isagoo kala wareejiyay ciidamada, wuxuuna kaarta military dagaalka kaga soo saaray ciidanka islaamka oo aad looga tiro badnaa dagaalka, iyadoo ay gaalada kor u dhaafayeen 300,000 halka ay muslimiinta ka ahayeen 3,000 oo keliya.
وها هو خالد سيف لنا قائد، وها هو خالد سيف لنا قائد. كم زلزل الأقدام من كافر حاشد، كم زلزل الأقدام من كافر حاشد. وها هو خالد سيف لنا قائد، وها هو خالد سيف لنا قائد. كم زلزل الأقدام من كافر حاشد، كم زلزل الأقدام من كافر حاشد. khaalid ayaa hoggaanka u hayay mid ka mid a afarta qaybood oo uu nebiga u qaybiyey ciidankii islaamka maalintii fatxu makka, wuxuuna ahaa ninkii ugu horreeyay ee maka ku galay amarka nebiga isagoo cagta mariyey koox is hortaagtay gelidiisa magaalada. wuxuuna gaalada ka dilay 13 qof iyadoo ay muslimiinta ka shahiideen 3 qof. sidaas ayna magaalada ku soo galeen saxaabadii uu horkacayay nebiga naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee iyagoo aan wax dagaal ah la kulmin. fatxu makka kadib khaalid ayaa hoggaanka u qabtay ciidamo dhowr ah oo nebiga u kala diray dhulalka carabta si loo baabi'iyo sanamidii ay caabudi jireen mushrikiinta. wuxuuna khaalid gacantiisa ku dumiyey sanamkii ugu weynaa ee quraysh caabudi jireen ee cuzza oo ku yaalay meeshii la oran jiray badnu daqlah. khaalid bin waliid ayaa qalad galay markii uu laayay qabiilkii bani jaasmah iyagoo sheegtay inay qaateen diinta islaamka, isagoona u fasirtay sheegashadaas inay naftooda ku badbaadinayeen. balse nebiga markii dhacdadaas loo sheegay wax uu yidhi, ilaahu waxaan kaa magangelay waxa uu khaalid sameeyey, isagoo dii ka dhiibay dadkaas la laayay. qaladkaas uu khaalid bin waliid si kama uga dhacay kama reebin inuu rasuulka uu hoggaan ugu dhiibo ciidamo badan oo dagaal loo diray, wuxuuna ka mid ahaa safka hore ee ciidankii islaamka ee dagaaladii xunayn iyo daa'if, isagoo wacdare ka dhigay dhammaan dagaaladii uu galay. dhaawac culus ayaa soo gaaray khaalid dagaalkii xunayn oo markii dambe uu ka bogsaday. khaalid ayaa hogaaminaya ciidamadii islaamka ee u baxay dagaaladii banilmustaliq, dawmatul jandal iyo kii lala galay reer bani xaaris oo dhammaantood dhacay xilligii uu nebiga noolaa. khaalid bin waliid ayaa gacan weyn ka geystay dagaaladii lala galay murtadiinta ka baxday diinta islaamka markii uu nebiga geeriyooday, isagoo ka takhallusay hoggaano badan oo islaamka lid ku ahaa oo wakhtigaas soo baxay, sida ninkii nebinimada sheegtay ee musaylimatul kadaab kaas oo lagu dilay beertii xadiiqatul mawt. khaalid bin waliid ayaa seeftiisa islaamka ugu soo celiyey qabiilo badan oo diiday sakada, iclaamiyeyna inay ka baxeen diinta islaamka wakhtigii abubakar as-sidiiq. sayfullah ayaa ahaa hoggaamiye furaa oo ahaa inuu islaamka gacanta ku dhigo dhulalka ciraaq, furus, shaam iyo ruum, isagoo jiray dhufaysyo badan oo ay adkeed in laga gudbo, hase yeeshee lagu dardaray xeelado militari oo isagu hindisay. 18 bishii ramadaan sanadkii 21aad ee hijriyada ayuu geeriyooday geesigii weynaa ee islaamka. khaalid bin waliid markii uu sakaraadka u soo xaadiray ayuu ilmeeyey oo murugooday. khaalid isagoo ka xun inuu maanta sariirtiisa ku geeriyoodo oo wuxuu jeclaa inuu ilaahay la kulmo isagoo shahiid ah. waxaana hadalladii ugu dambeeyey ee laga hayo ka mid ahaa, waxaan joogay dagaalka iyo dagaalka, waxaan xaadiray macrakada iyo macrakada, korkayga meel fayow ma lahan oo dhammaan waxaa ku yaala dhaawacyo. maantana waxaan ku geeriyoonayaa sariirteeda sida awrka uu geeriyoodo. intaas ayaanu kusoo ekeeninaa qisadii khaalid bin waliid. haddii aad fiideogan wax un ka faa'iday fadlan like saar. haddii aad tahay markii kugu horeysay janaalkeena soo boqoto fadlan taaba calaamada subscribe-ka oo nagu soo biir mahadsanid.